بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا ليال تنوى حلقة دي اللحاد وكمدة سلسلة دي عقيدة المسلم إن شاء الله تعالى. وحن كسو قادن دونا دليل كاللبات وكمدة أدلة اللود اللي شذا جرتان كإله سبحانه وتعالى دليل العقل. سؤال شو هو الرسول كجواب إنه هو ما هو العقل؟ عقل محوية. العقل وحويه والنور إلهي سبحانه وتعالى أكوب بيري قلبك بني آدمك كاسو أكوب كلا صار وح وناكسن يوح حن وح لافته أولى يوح دبيه كاسا وح هذا عقل مركا وحن ذي إلهي سبحانه وتعالى أكوب بيري قلبك بني آدمك وحن مركا أدري شيء قول الله سبحانه وتعالى فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها miyaysan dhulka ku soconin baa leeyahay iyagoo fiirfiirinaya oo markaa aysan u sugnaanin quluub ay wax ku fahmaan ama dhaga ay wax ku maqlaan. Marka waxaa laga dhigay caqligii tilmaan uu qalbigu leeyahay sida wax weeye maqalku uu yahay tilmaan dhagaha maaragtay ay leeyihiin weey. Sidaas kale waxaan niri waa wax uu ku kala saaro bini aadamku waxa xun iyo waxa san. Ma ana dhihinin waa aalad wax lagu maaragtay gaaro weey oo kaliya. Waayo xayawaankuba waa leeyahay nooc tamyiz ah. ومثلا هدي وحوية لصهر دقه عيد علف كدورنا سداسو كله هدو أركم وحوية حيواناتك دبك أوجي سو كعررة مركا سداسة مركا حوق بدن إن اللي هذا وحي قفك كلا سارة يوحى وناكسن يوحى حن عقلك بهذا الإطلاق وعمتك وحوي فوق هذا أي كهذلان ومركا كور رميان تكليفته أي رهدان في العبادات والمعاملات أي رهدان قفك مكلفك إنه عقل يقول جدا كونوي waxaa kaloo caqliga loo isticmaalaa itlaaq kale oo ah khibradda qofka uu ka kasbado waaye aragnimada iyo aqoonta ayaa waxa la yiraahdaa al-aql mararka qaarkood oo waxa leeyahay hebel mesela waa qof caqli badan waxa loo jeedaa qof waaye arago waxa weeye tajaarib badan la weeye. waxaa kaloo caqliga loo isticmaalaa lagu itlaaq saddexaad oo ah waxa la yiraahdo al-mabaadi al-aqliya ad-daruriyya mabaadi ilaahay subhanahu wa ta'ala caqliga qofka uu ku beeray oo ku abuuray waa waxa badahiyaadka loo yaqaano sida مثلا qofku wuxuu garan karayaa hadii ay مثلا dhacdo in cid ka dambaysa ay jirto ama مثلا in aysan dhici karinin hal shay inuu hal mar taagan yahay dhaqdhaqaaqaya oo kale مثلا ama in lagu jiraa mana jiro hal mar ah sida caqliga markan loogu garan karayo mabaadi'da noocaasa ayaa waxa lagu idlaaqaa marka qaarkood al-aql waana midda waxa weeye hadda marka la istidlaalayo ay ula jeedaan caqliga qoliyaha marka ka hadlaahay mabaadi'dan bay ula jeedaan markay leeyihiin waxa loo daliishanaya caqliga waxay ula jeedaan waa mabaadi'dan badahiyaadka la yiraahdo. xalqadii labaad waxaan ku soo tilmaanay in waxyigu gaar ahaan quraanku uu kulansaday ummahat ad-dalaa'il al-aqliyya inta asaaska oo ugu muhiimsan adillada caqliga in quraanka laga helayo. waliba waxaan soo tilmaanay al-imaam Suyuudi rahimahullah وتري علماء الدين إن يرهن قد اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين والأدلة. إن قرآنك أكلن صدي لما نوعية وحوي براهين تحجج كعقلك يا أدلة ذا. وليب قرآنك وحوصة بندقة يا أيضا وحوي تفترا وحوي أن لهين دلقاف أن لهين. هل كأيدعي كرئيس قفك أدو كره هذه طرق كلا سيدة فلسفة علم الكلام ay dhacayso muqaddimaadka ay dhigayaan qaarkood inaysan ahayn wax isku waafaqsan yahay ee dood iyo muran badan ka jiro. waxay yiraahdaan cilmigu tilmaamaha ay leedahay adillada caqliga ah ee quraanku uu soo bandhigo iyo waxyigu waxa kamida al-yusr was-suhula inay yihiin kuwa fudud oo sahlan oo qof walba uu fahmi karo wax tacqiida kuma jiraan sidaas oo kale ma erayad adag iyo muqaddimaad dib badanna ma lahan oo waxa weeye quraanku wuxuu soo qaadanayaa inta macna bini aadamku wax isku waafaqsan yihiin qofka caaqilka ah oo loo bandhigaana uu soo wax muran gelinaynin. marka adillada waa adilla muyassara likulli man yuriidu fahmaha waa adilla u fudud qof kasta oo raba inuu fahmo sida ay tahay caadada adillada quraanku soo bandhigo oo dhanba walaqad yassarna al-qur'ana lidhikri fahal min mudakkir sida ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala. wuxuu yiri الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم رحمه الله تعالى كلما كان الدليل العقلي أقرب مدركا وأسهل تناولا
وأظهر عند العقل كان أجدر بأن يوثق به. markasta uu noqdo daliilka caqliga ahi mid waxa weeye fahamkiisu dhow yahay soo qaadashadiisuna ay sahlan tahay caqligana u muuqan og wuxuu mudan yahay in lagu kalsoonaado ma aha arintaas waxa suucida sugtay culimada ahlul xadiidka oo kaliya ma aha ee xataa falaasifadu way qirayaan arintaa wuxuu yiri abul walid ibn rushd rahimahullah ta'ala kitaabkiisa al-kashf an manahij al-adillah wuxuu yiri الطرق الشرعية إذا تؤملت وجدت في الأكثر قد وصفت بأمرين أحدهما أن تكون يقينية والثاني أن تكون بسيطة غير مركبة حير طرق شرعية وأدلة عقلية وشرع أصاب بندقه هدي لا إيجو وحال هلا يابو يري إن يكون صفيسنتها اللبات المامود أن تكون يقينية إن يتهمد يقيني الله بوه والثاني أن تكون بسيطة أي غير مركبة إن يتهي مد بسيطة ووحوي أن مقدمات فربضان أساس عرني بس يعد يري قليلة مقدمات كذا يربو يري فتكون نتائجها قريبة من المقدمات الأول وحكا أقدوانا يوري نتيجوين كودي مقدمات يعني باللوغ أو كلا أي مركا كأقدوانا يسا سيداسو كلا تلمانت اللباد وحوية الكثرة والتنوع إنay tahay waxa weeye duruq aad iyo aad u fara badan oo caqliya ayaa quraanku u soo bandhigaya waxa weeye xujajka iyo baraahinta caqliga ah waxaad arkaysaa مثلا alam naj'al al-ardha mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subatan wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'ashan wa banayna fawqakum sab'an shidadan wa ja'alna sirajan wahajan wa anzalna min al-mu'sirati ma'an thajajan ila yani marba dhinac waxna ka tusaya mar dhulka mar cirkan la ka tusaya mar waxa weeye aayaadka sida qorraxda iyo dayax waxna la ka tusaya mar waxa weeye nafsada bini aadamka waxna la ka tusaya iyo hurdada iyo waxa weeye ni'amka ilaahay subhanahu wa ta'ala badan oo u galay afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sudihat wa hasdan wa adilla aqliya weey insaanka awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'an ya ilaahay subhanahu wa ta'ala am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun marka waxaas dhan waxa weeye waa labadii hadda uu sheegay tilmaamood waa yaqiini wax la hubo quraanku soo bandhigaya oo qofku uu ka shakisnayn yani ku mashquuli ma quraanku in wax weeye meeladoodi ka jiraan inuu aado macnaha waxa qofku uu hubo naftiisa loo celinaya insaanka waxa hortiisa ka muuqda ayaa wax weeye wax looga sheegaya marka arintaasna runtii waa min tawsi'ati Ilaahi subhanahu wa ta'ala ala ibadi Ilaahi subhanahu wa ta'ala adoomadiisa wuxuu u waasiciyay aayaadka iyo duruqa ay ku garan karaan waxa weeye Allah subhanahu wa ta'ala jiritaankiisa iyo wahdaaniyadiisa weeye si ay u caabudaan oo u shukriyaan weeye wuxuu yiri Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kullama kana an-nas ahwaja ila ma'rifati shay fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yuwassi'u alayhim bidala'il ma'rifatihi mar walba dadku ay shayga aad ugu baahan yihiin garashadiisa Ilaahay wuxuu u waasiciyaa duruqda iyo adillada ay ku gartaan wuxuu tusaale u soo qaatay adillada jiritaanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam sidqigiisa ayuu tusaale u soo qaatay ولذلك أي بعض أهل العلم وحير هذا الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق طرق الله سبحانه وتعالى اللي جاره وحي لا ترى لن تهي بني آدم كان في يالك وأنت لن تهي يعني اللي مسك هو بكروي ولذلك أبو العتاهية محيره وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد شيء الدنيا يالا وحكون جرى آيات على مدى الدليل تصيص إلهي سبحانه وتعالى جرتان كيسا إن شاء الله تعالى حلقات كسوس عدو حنكسو قادم دونا الله كميدا أدلة عقلك وما ركتيا قرآنك وصابا لقي أيام بإذن الله تعالى كسو قادم دونا هذا بالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد